Tababarihii hore kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa dalab cajiib ah ka helay kooxda kubadda cagta ee Al Nassr oo ka dhisan horyaalka Sacuudi Carabiya ee qaaradda Aasiya. Kooxda Al Nassr oo dhawaan uu ku biiray xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa lala xiriirinayaa in Zidane uu bedel uga dhigto tababaraha dhawaan shaqada laga ceeriyay ee Rudi Garcia. Zinedine Zidane ayaa waayo cajiib ah ku soo qaatay kooxdiisii hore ee Real Madrid isaga oo kula soo guuleystay koobab badan oo ay ka mid yihiin 3 koob oo Champions League oo haatan lala xiriirinaya horyaalka Sacuudi Carabiya ee kooxda Al Nassr. Zinedine Zidane haddii uu ku biiro kooxda Al Nassr waxa uu tuuri doonaa qoriga faqriga isaga oo mushaar ahaan u qaadan doona 120 milyan oo euro ah. Zinedine Zidane ayaa sanadkii u xaadiri doonto 60 milyan oo euro ah haddii uu aqbalo dalabkan ay u soo bandhigtay kooxda Al Nassr. Waxay wararka sheegayaan inuu ka fiirsanayo go'aankiisa maadaama ay jiraan kooxo badan oo doonaya inay qaataan tababarahan reer Faransa ee Zinedine Zidane. Naadiyada reer Yurub ayaa ogolaan dooneen in Zinedine Zidane ay siiyaan wax ka badan 15 milyan oo euro ah sanadkii, laakiin Sacuudiga waxay khasnadiisa bangiga u shubi doonaan 60 milyan oo euro ah haddii uu ka aqbalo heshiiska ugu soo biirayo kooxda Al Nassr. Al Nassr oo dhawaan shaqada ka ceyrisay tababare Rudi Garcia ayaa waxay si ku meel gaar ah u magacaawday Dinko, laakiin kuma kalsoona kooxda waxayna doonayaan inay mideeyaan Cristiano Ronaldo iyo Zinedine Zidane oo si wadajir uga soo shaqeeyay kooxda Real Madrid ee dalka Spain. Kooxda ayaa haatan kaalinta labaad kaga jirta miiska kala sareynta horyaalka Sacuudiga waxayna 3 dhibcood ka dambeeyaan kooxda Al Ittihad oo hogaaminaysa horyaalka Pro League ee dalka Sacuudi Carabiya. Daawade, adiga ma ku muuqataa in Zinedine Zidane oo ku biiri karo horyaalka Sacuudi Carabiya ee kooxda Al Nassr?